aan ku bilaabo dhankayga mudane Fahad waraysiyo hore oo bixisay dhaxdan baan kaga boodayay waraysiyo hore oo bixisay dabcan waxaad ku sheegtay inaad ka tirsan tahay ururka diiniga ee al-i'tisaam sidoo kalena hadda waxaad ku sheegtay khudbadaadii hordhac ahayd in ay tahay xataa dhan diineed in laga fiiriyo arrintan ururkaasi urur diimeedkeed ka tirsan tahay isagu wuxuu si la og yahay taageeray mowqifkan aqoonsisiinta Somaliland sideed u aragtaa in ururkii aad ka tirsanayd ee aragtidaadu ay ka imaanaysay political thought-kaaga uu ka imaanayay uu aragtidan taageero aduse maxaad kaga duwan tahay iyaga horta si xid yar i'tisaam oo dhan intay meel fariisteen waa aqoonsigan taageersanahay horta may dhihin labo i'tisaamka inta aniga ka aqaano nidaamkooda federaal waa qolo walba meeshay joogtay diinta waafajinaysa hadda qolada reer Laascaano xaqay ku taagan yihiin shirar bay qabanayaan xafladay qabanayaan qolada xamar joogta midnimada fiican bay leeyihiin maca asaf aadan uga xumahay i'tisaam inuu sidaas ku dambeeyo aadan uga xumahay xaraka qiimo badan oo mustaqbalka dalka Soomaaliya qiimo weyn ku leh wax badanna soo qabatay dadkay tarbiyaysan aniga aan kamid ahay inay noqoto nidaam federaal oo la diimeeyay aadan uga xumahay marka kulligood horta ma ahan taa waa sixida labaadna qaybo badan oo kamid ah mowqifka saxda ah bay taageersan yihiin laakiin way jiraan niman i'tisaam magacooda sheegtay oo reer Hargeysa ah oo taageeray kuwa si sahla waxaan u dhahaynaa taariikh xun baad sameyseen magaca islaamkana waad ku ciyaarteen magaciinana waad ku ciyaarteen waxa ka fiicneed adcaful iimaan munkarka muxuu dhahay nabiga kaleey salaatu wasalaam adcaful iimaan waa inaa iska aamusan adcaful iimaan inay iska aamusan bay ahayd salafiyada kale oo lagu xaman jiray dawladaha inay iskala shaqeystaan oo iskala joogaan way iska aamuseen ba salafiyada qaarna dawladaha la shaqeystaan qaarna waxay iska noqdaan kacdoon kuwa kale waa iska aamuseen culimo fara badan oo reer Hargeysa ah oo iska aamuseen markaan daawadenin magaca i'tisaam sheeganaya waa ka aad baan u dhibsaday xataa inaan anigu iri waa ka tirsanahay waa dhibsaday anigu waa ka baxay hadda kama wado laakiin qof magaca i'tisaam sheeganaya inuu yiraahdo aqoonsigaanan taageersanahay diintiisa kama turjumin akhlaaqdiisa kama turjumin dhaqankiisana kama turjumin waxa uu habooneed adcaful iimaan inuu iska aamuso hadduu aamuso ma dambi ma ahan waa mowduuc kale laakiin inaad taageerto inaad dambi taageerto inaad khalad taageerto inaad maanta waxaan ka hadasho taariikh xun oo fool xun waay munaasabadan waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo culimada suufiyada waliba culimada suufiyada reer Hargeysa kuwa la xiray waa ayaga mowqifka xaqaa sheegay mowqifka cadaaladana sheegay waligoodna ayaga taariikhda islaamka markii lagu soo duuray islaamka difaaci jiray ummadda markii lagu soo duurana difaaci jiray kooxda ka tirsantahay haday khaldanto waa khaldantahay waana dhigi karto sidaa darteed culimada suufiyada kuwa xamar joogana mowqifkooda uu fiican yahay kuwa Hargeysa joogana mowqifkooda uu fiican yahay laakiin i'tisaam kuwa xamar jooga fiican kuwa Hargeysa jooga mowqifkooda ma fiicnayn waxaan kaloo fiicnayn kuwa kalena kuwaas waa qaldan yihiin ma is oranin shibba iska dhaheen xarakaadka islaamiga Soomaaliya joogana waxyaabo noocaas markay soo maraan sidaan oo kale qaarkood imtixaanka ugu dhacaan marka saaxiibaday waaye laakiin imtixaanka way ku dhaceen dhanka kale haddii aanu nimaadno aqoonsigan ay Israel siisay Somaliland sida loo yahay heshiis baa la gaaray wax ku qornaa wali codimo ma kama warhayno maxaad ka warhaysaa asaliyihii hore sirdoonka ahaan maxaad ka ogtahay heshiiskan la gaaray ma ku jiraan hub military ma ku jiraan saldhigyo military maxaad kala socotaa yani waxaan u dhigaynaa maxay faa'iideen oo ay helayaan waxbana ma faa'iido doonaan technical lama siinayo qalab ah awood ciidan looma kordhinayo waxba looma siin doono WhatsApp call-kaasi ka bilaabataa ayadeena ku dhamaataa iyo booqasho tahriib ah oo dhowr meel inta la soo marmaray dalaq la soo yiraahdo tahriib lagu baxay wax kale la siin doona ma jiro Israa'iilna ayada meeshan timid ayada waxay u timid taqaana waxa kale muhiimka waxa waa in laga hadlo maxay Israa'iil faa'iiday Israa'iil waxay faa'iideysaa base military meel ay ciidan ka samaysato waxay faa'iideysaa qalab technical waxay dhigato way badaha ku control karto waxay faa'iideysaa inay keensato system intelligence iyo wax badan oo xoga intay hayso in ka badan ay ku heli karto wax loo celiyana ma jiro hadda بالمناسبة إسرائيل لعق ما بحسه budget support ما بحسه
مشاريع ما بحسه هرمر ما بحسه ودوين ما دستو يعني هبل ها هبابي حقوها هبابي حتى ما الله هبابا ما أهان أدونكي سيدو أهان جرين ما أهان سيدا درتيد دوكومنتيك هذا دقيستنا wax ay heleen kuma boqornaba waa dawlad baa tahay telefoon laga dhahay un shalay markuu Muuse Biixi Abi Axmed intuu tagay uu la saxiixanayna wax la siiyay kuma qornayn wax laga qaatay bisa ku qoran wuxuu asagu Muuse bixinayo baa qoran maahan wax asaga la siinayo hatta waa ku ictiraafnay Abi Axmed uma qorin waa markaan shaqada bilowno ka bacdi baa waxaan ka fikiraynaa inaan ku ictiraafno intaas la sacbiyay wallahi mashxarada wax weyn loo arkay وانا كما هالسنه مدحونا حسن الشيخ حلي هدا uu jooga weeye shaqo fiican uu ka qabtay umada Soomaaliyeedna way ku garab istaagtay sida darteed hal shay oo maamulka hadda jira iyo shacabka reer Soomaaliland kaba soo qaad waa la habaabay aqoon baan laga heli doonin qalab baan laga heli doonin wax yar oo sirna waa idin sheegaya Israa'iil waxay haysato cidna kuma aamintaba waxay cidna wax ma dhiibataba sida darteed waxay haysatana ku aamini mayso waxay bixisana ma haysaba marka asaga baa wuxuu bixinayaa dhul asaga baa wuxuu bixinayaa strategic meel ah asaga baa wuxuu bixinayaa wax alla wixii xataa qarsoodi loo sheegay banaanka uu ku bixinaya adaamadan fahad dhanka kale joogitaanka Israel Somaliland sidaan ognahay waxay kulaashaa badda cas baabul mandab baa ku yaala maraakiib ganacsi baa halkaas isaga gudubta tani dhanka dhaqaalaha marka laga eego joogitaanka Israel cadow badan bay ku leedahay caalamka gaar ahaan Asia iyo waxa weey Soomaalida in Asia aan dhahdee iyo duulka dawladaha Carabta siday tani saameyn ganacsi ugu yeelan doontaa dhanka ganacsiga marka laga fiiriyo iyo dhaqaalaha horta qof takhasus ku lahaa dhaqaalaha ba fiican inuu su'aasha ka jawaabo laakiin aniga fahamka guud aan ka haysto dagaalkii Gaza markuu socday oo Xuuthiyiintu meelaha wax ka tuureen marinkan dhan uu baaba'ay wala socotina maleenaya waxay noqotay badeecooyinka in la soo wareejiyo oo meel dheer laga soo wareejiyo waxa jiro sheeko kaftan oo nin degdegsan baa masaajid soo galay marka imaamkii baa sujuud aad ugu dheeraaday marka ninkii degdegsanaaba intuu yimid oo wuxuu yiri aniga waana dhibto meel baan ku degsanaa sujuudiina waa nagu dheerays shaydaan dhibayo dha sheekhu wuxuu yiri dhibkii aad shaydaan ku haysay annaga ay soo gaaray waa dhaweyd baan buug inta qoraan buug daabacay xamar baan rabay inaan u soo diro waxa la yiraahdaa dad kaargo ku dirayso 4 bilood ay xamar ku tagaysaa turkiga laga soo diraya marka aniga buugayga ka dareemay inta wax kale la gaaray Israa'iil ba halkan fadhida badeecooyinka iyo dhaqaalaha iska daa waxa ka muhiimsan waa amniga qof walba wuxuu ka baqayaa xogta alaabta meesha u maraysa xataa in la ogaado wuxuu ka baqayaa marinkaas loo mari karo dhibaatada uga dhalan karto marka meeshii isu bedeli lahayd inay noqoto jannadii adduunka baa waxay isu bedeli doontaa khatar qof walba sidoo isaga maareyn lahaa ama uga carar lahaa ee u timaado midaan kale qof takhasus u leh baa fiican oo aad uga jawaabo waa sax weeye su'aalaha u badan dhankiinay la jiraan waan ogahay meesha miiska waxa fadhiya akhyaar badan oo su'aalo badan oo macquul qabta si aanan u noqonin qofka idin hadla waxaan rajaynayaa inay su'aalo macquul oo la xiriira mawduucan kaliya ay ka soo bixi doonaan fadhigan waxaan rajaynayaa marka qofkii su'aal qaba inuu gacanta taago deedna aynu doorano qofka aynu rabno inaan su'aasha siino qofkii su'aal qaba gacanta taagi dan waan dooranaynaa ninkan dhalinyarada ah oo safka labaad qofka labaad microphone-ka su'aasheedu waxa waay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud daraad doodiis wuxuu ku sheegay mar la wareysanayay haddii loo baahdo Somaliland in la soo celiyo haddii laga maarmi waa micnaa hub in la adeegsado in la dagaalamo oo la soo celiyo oo qaab awoodeysan loo soo celiyo bal maxaa ka dhalan kara haddii si awoodeysan loo soo celiyo Somaliland la weeraro ayadoo hadda la ogyahay waxay ka gadoodsan tahay oo ka maqan tahay ay yihiin gaboodfalo hor loogu sameeyay waa mahadsantiin laba su'aalood baan rabaa inaan weydiiyo taliyaha maxaad ka og tahay sidoo ku bilaabmay iyo dawladaha kala shaqeeya Somaliland xiriirka laba filaanka ah ee Israa'iil iyo Somaliland su'aasheeda labaad maadaama aad xoogaal u tahay arrimaha gobolka arrimaha juqraafi siyaasadeedka qadiyadani ammaan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo aqoon ahaan haddaan xal loo helin saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa gobolka Geeska Afrika
أنا مدحوينه حس الشيخ إنه يري وهو ما أدرك سنين ما مقال ما أدرك سنين وصحي وخالد من أورن ما يمبا أبو ذبا مرك وقت هاي سكرنا منين تبرو هذا كو ماشاس ميلتري كو آذنا ما هيو دود ماشاس تاعنا دود ميلتري ما هنا ودود عقلي مسكح وباهن إيو إن لا دود يسوع عقل علم وباهن شعب كرر سومال لأنه يحب هاي جد كان نجري ذي إن لا تصو إنه ماشان جد يعني وأنا هذا كفتن كذي شيء جايو تلفن كيسدون يشن سنة الجراعة والشيطان باقبتين لده بس يوبهين والشيطان لقى النار مركا وير العيد وحلو يهينا بجرته قد يدو مركي فكر إيه مسكحة خلدنتنا مسكحة إن لتوسي وباهن تاي ما هنا وحبا ما تريسو هذا إلا هذا مدحوين حس الشيخنا أنت أنا وكبا قانا هذا إنه وير ومن الديار سنة طبيعة عدد أنا كما قانا عدالة دوي في عنتها هذا هذا عيدا هاي سنة لا حتى سو وير لا طبيعة عدد كما قانا مركا خبدي قرنيد بaa ku leexatee u malayn maayo qorshe hadda isku aadan inay jirto dawladihii waxaa tiri ka kaalmeeyay dalaaliina ka kaalmeysay ama dawladaha ahaadaan ama qof ha ahaadaan cirana in u diyaarsan buu ahaa in la dalaalo marka qofkii wadankiisa dalaalayo waa la dalaalayaa hadda dawladahaas magacyadooda ma rabo inaan sheego laakiin waa taqaanaan iga leexiye waxba hay weydiinina gobolka say u saameynaysaa hadda gobolka waa iga wada aamusay waa aragtay Ethiopia waa aamustay Kenya waa aamustay dawladii dariska waa wada aamuseen maxay u aamuseen way og yihiin waxa meesha ku dambeynayso Ethiopia maanta ayada problem fara badan ku furan yahay ma doonayso in regionka isla sii holco dawladaha kalena waa sidaas oo kale marka regionku waa ka caqli badan yahay inuu gud noocaana ku dhaco nimanka hadda madaxda ka aana gaar ahaan regionka hadda ay ka suurtagalba tahayba ama laga filan karaba waxaan filayaa inaysan kana fikiraynin kana sameynaynin gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya mana u maleynayo inay halkaas aadayaan wadan walbana duruuf dhaqaale duruuf siyaasadeed iyo duruufaha jira aamuskoodana waxaa laga yaabaa inay ku dhex wareereen labadii dhinac qoladaana saan sameeyay la yiri qoladaana saa sameeyay la yiri inay aamuseen annaga laftigeena faa'iidaan ku qabnaa sababtoo ah midii saxda ahayd baa soo haraysa marka Mille Zanaabi baa laga sheegay Soomaaliland hadii cid aqoonsanayso qofka u dambeeya xataa ma noqonayo kan u dambeeya aqoonsanaya xataa aniga ma noqonayo yiri marka meeshan regionkan waa meel waa la isku haahayaa maahan mar hadii la fakiyo cid soo celin karta ma jirto dumarkana su'aal way weydiin karaan barrow baa halka uga jeeda microphone-ka hal mar u gey qadiyadaha waaweyn oo noocan oo kala markay dhacayaan xafiiska ka soo shaqeysaya wuxuu yahay kan ugu muhiimsan oo ka shaqeeya hadda tusaale oo kale global world order ku isbedelaya guud ahaan adduunka wixii dhacayo dhanna wax marqaati laga yahay nimankan la yiraahdo Israel iyo saaxiibadood ururadooda waxay doonayaan wadamo fara badan inay kala jiraan laga soo bilaabo Libya Yemen Syria waxa ka soconaya marqaati ka nahay مشاكل Soomaaliya yimid qadiyadaha infisaaliga marka la joogana waxa ugu weyn indhaha ku ay waxa dawladaha la raba in laga go meesha ay joogto kale waxay u sameeyaan xafiis ama sirdoonka ay raado waxay u sameeyaan xafiis si gaar ah ula socda waxyaabaha ka iman kara tusaale kale Shiinaha waxa ugu weyn indhaha ku hayaan waa Taiwan waxana loogu dhicilayaa Taiwan in la aqoonsado waa hanaanka sirdoonka Shiinaha uu shaqeeyo annaga wixii dhacay hadii ay noqon lahayd warbaahin iyo hadii ay noqon lahayd dawlad iyo hadii ay noqon lahayd mucaarad markaliya shoog nagu noqdeen la arkay Somaliland cirro iyo ninkii ahaa Netanyahu telefoon ku wada hadlay oo WhatsApp call sidaad u dhigtaba ka wada muuqanaya laakiin saacado ka hor markii ay Somaliland u yeereen wariyaasha ilaahdana i'tiraaf baa soo socda ayaa lagu baraarugay signals badan baxay Mareykanka oo kala qoliyo loobistayaalaha ka shaqeynayay wargeysyo fara badan oo Mareykanka soo baxa oo foreign policy-ga qorana way tilmaamayeen maxay tahay nugeelka sababay Soomaaliya in dhinacan infisaaliga ama waqooyi galbeed ay u fahmi waayeen arrintan markaliya shoog u noqotay ma inaga dabacsan ma sirdoonkeena ka korila in wadada Makaal Mukarrama wadooyinkan ciyaal bistoolada u dhiibo mase siyaasadda ayaan la ogeyn ba amniga in laga hago maxaa naga qaldan taas oo baahan la fahmo
aada mahadsantihiin haddii aan su-aasheeda u guda galo markii laga hadlayo arrintan aqoonsiga somalilan waxaa ka horreeyey qadiyad kale oo la xiriirtay in MOU-gii abiy axmed iyo muuse biixi dhex maray hanaanka iyo hadda dawladdu u wajahayso arrinta ictiraafka somalilan iyo sidii u wajahaysay MOU-gii muuse biixi iyo abiy axmed waxa ay u muuqataa inay isku si ay dawladdu u wajahayso marka laga hadlayo dadaalada dibadda ah iyo kuwa gudaha intaba maxay labadan qadiyadood ku kala duwan yihiin maxay sidayse tahay in ay ku kala duwanaan karaan hanaanka loo wajahayo haddii ay noqoto loobinka arrimaha dibadda iyo dawladaha caalamka in lagala hadlo in arrintan aan la dhaqan gelin iyo farqiga u dhexeeya labadaas qadiyadood ee dhacay waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hal su-aal oo local ah Fahad Yaasiin waxaad ahayd taliyihii NISA xilligii dawladdii hore muddaad dalka ka maqneed dhawaanaad soo laabatay madaxweyne xasan khudbadaada gabagabadeedii waad ku weerarto waxaa tiri madaxweynuhu wuxuu rabaa wax walba in sida uu rabo ay u dhacaan tusaale ahaan arrintan wuxuu rabaa qadiyaddan in la garab istaago haddana wuxuu rabaa inuu wixiisi hore uu iska walaaqdo maadaama aad maalmahan joogtay muqdisho maxaad aad is leedahay dawladda madaxweyne xasan way u qabsoomeen gaar ahaan amniga muqdisho kale waxaa la sheegaa in xilligiina uu aad u liitay markii aad hay-adda joogtay haddana isbeddelo badan ay ku yimaadeen madaxweyne xasan maxaa horumara oo uu dalka gaarsiiyey intaas oo aad u qiraysaa Fahad Yaasiin aad amaastiin aniga intaan ogahay dawladda Soomaaliya waa ogeyd ictiraafkaas inuu soo socdo waana ka warqabtay waliba waa loo soo sheegay waliba dawlado kale oo lagala hadlay baa u soo sheegay hebel baa ogaayay hebel baa ogaay hadda ma oranayo laakiin madaxda qaranku way ogaayeen maxay uga hortagi waayeen horta su-aasha cidda la rabo inay ka jawaabaan waayo laakiin ma u malaynaysaa ninka kiiska kismaayo ay Jubbaland manage gareyn waaye maamuli waaye inuu Israa'iil maamuli karo ma u malaynaysaa ninka 4 bilood u dhiman tahay hagaajin waaye habkii dawladnimada Soomaalida ay ku sii socon lahayd inuu hagaajin karo WhatsApp call-ka ka hor inuu garan karo warantan telefoon ku dhicin dadkaaga sii nidaamso oo waxaaga sii nidaamso su-aasha ay taan la isweydiiyey waxaa waaye way dhacday ka bacdi maxaa la qabtay waa su-aasha uu sheegay xaafid Soomaa ka bacdi maxaa la qabtay tii Ethiopia labada su-aalood baa isdhex gelinaya iyo tii hadda Israa'iil tii Ethiopia markay dhacday madaxweynuhu guddi buu magacaabay guddi qaran ah Cabdiraxmaan Caynte oo wada taqaanaan baa gudoomiye looga dhigay dad khubaro ah oo wanaagsan oo Soomaali ah la ururiyay midaan hadda bil baa sii dhamaanaysa wax la qabtay marka laga reebo waxna loo qabtay dawladda Soomaaliyeed maxay qabatay guddi ma magacaabin shirweyne ma qabanin arrinta kamay dhigin arrin qaran taladii may dhihin miiskaan saarnay waxaan talahana laga weydiiyo maysan dhihin hal maraa golaha samata bixinta loo yeeray ayaguna waxay dhaheen war madaxweyne namidee asna wuxuu yiri dib iigu dhiga mar kale aan idin kala sheekaysanaya wixii localka ah marka maxaa hore looga qaban waayay war dabkii wuu dhacay ilaa hadda irtaan xataa guddi qaran in loo saaro wala awoodi waayo xataa hal shir in loo qabto wala awoodi waayo adduunyada oo dhan baan tan ugu soo yaacday waxa hadana leeyahay maxaa idin qabanaa xataa waxaan durayaa capacity-ga looga jawaabi karo fursadda aan haysano aad u ila liitaa aniga kartidiisa xataa waa ila liitaa waxa ku soo haray mukhaabaraadku adduunyada oo dhan national agendaha sida madaxweynaha u yaqaano bay shaqada koowaad xoog saaraan marka madaxweynaha Soomaaliya national agenda waa inuu u aqoodaa dadkiisa inuu isku haayo dadkaaga inay midaysan yihiin waa agendaha koowaad inta hadda kaasi socoto ma ahan inta kale sida isugu keen lahayd waa agenda markaan si runa idin kugu sheego la sacaano madaxweynaha tagay waa ku faraxsanahay aniga inuu tagay waana ku taageersanahay laakiin WhatsApp call-ka ka hor ma u socday ma aadi lahaa intaan Netanyahu telefoonka soo dirin meeqa firdhiye sugayay inuu yimaado maray isku dantay oo asaga laftigiisa caleemasaarkiisa uu ilaabay ba ilaahay Netanyahu ka soo hadalsiiyay hal mar la wada orday waa la tagay meesha marka loo dhimanayo qorshaan jirin maskax baan jirin
haddaadan adi qorshe lahayn oodan doodda hargeysa geynin doodda xamara imaaneen haddii madaxweynaha maalintii firdhiye la doortay uu tegi lahaa wax badanaa laga yaabaa inay dib u dhici lahaayeen waa laga yaabaa inay dib u dhici lahaayeen hadduu hadda ficilo kale sii samayn lahaa waa laga yaabaa inay wax isu noo hagaagi lahaayeen marka xataa xafladaha aan tegayno oo caleemasaarada aan tegayno waa mid loogu jawaabayo netanyahu laakiin firdhiya ka faa'iiday iyo maamulka waqooyi bari fursad ilaahay cirka uga keenay waa marka ka hortag dowladdu ma leh ka dabatagna ma leh qof bini aadanka nature-kiisa waa inuu ka dabatag leeyahay su-aasha kale waxaa waaye maxaa dowladda u qirsan tahay wax badanaa u qirsanahay haddaba inay soo baraarugtay waa u qirsanaa go-aano fara badanoo hadda ay ku soo aniga maalin dhowd lahaa caawa birmada xasan sheekh wax badanaa u qirsanahay inay qabteen amnigaa kuu soo haray amniga 3 doodood waay dooda koowaad amni inuu magaalada muqdisho ka jiro amni fiican yahay aad u wanaagsan yahay dadka muwaadiniintana u fiican yahay meel fiicanna la keenay waa ku amaaneynaa waa qiraynaa kaliya maaha waa ku amaaneynaa hay-adaha ka shaqeeyaan ku amaaneynaa nabad sugidaan ku amaaneynaa booliskaan ku amaaneynaa dowladdaan ku amaaneynaa waana ku garab taaganaa saa darteed ninka hadda dhaho magaalada muqdisho amni ma ahan waa arkay mucaaradka qaarkood oo dhahaya magaalada amni ma ahan marka amnigaas ay ka hadlayaan aniga ma aqaani xaqiiqada la rabaa waxaa jira kaftan yar baa idiin sheegaya nin oday oo dhintay allah u naxariistay maxamed dheere la yidhaahdo baa magaalada jowhar oo muddo laga haystay buu yimid marka nin baa intuu yimid uu dhahay magaaladan shalay amnigay ahayd nabaday ahayd barwaaqay ahayd marka amnigeeda inaan ku haysaa lagaa rabaa ani shalay amnigii ma ahayn uu dhahay galabtii amnigeeda ay bilowday adigay amni ku ahayd marka mucaaradka qaarkiis waa rabaa inay qiraan haddii amni laga shaqeeyo in amniga loo qiro waxaan kaloo rabaa inaan mar walba ku celceliyo wixii wanaagsan ha la qiro wixii fiicanna ha laysku taageero qodobka labaad waxaa waaye annaga dowladdanadii waxaa la dhihi jiray amnigay ku fashilanta horta kuwii dhihi jiray waa kuwa hadda xarooday kuwii dhihi jiray magaalada amni ma ahan dhibaataa ka jirto ayadoo nabad ay jirto statistikada haddaa ku laabataan xilliyo dhaadheero muddo dheeroo magaaladan amni ahayd siday hadda u tahay amni ahayd baa jirtay laakiin waxay oran jireen amni ma ahan balaayaa jirto marka horta qolada ugu qaylo dheereed baa naga xarootay oo ayagana meeshii ku xaroodeen laakiin annaga akhlaaqdoodii ma yeelanayno sidoodii uma dhaqmayno amniga waa ku fiican tihiin shaqo fiican baa ka qabateen waana idinku garab taagannahay inta aad nooga baahan tihiinna waa idinku garab taagannahan leenahay qodobka saddexaadna waxaa waaye wixii dowladdii hore ka soo shaqaysay anugu aan xilliga aan joogay hay-addana shaqooyin badan laga soo qabtay hadda waa la sii dhammaystiray kaamirooyinka waa la sii dhammaystiray ciidamada ilaalinta shacabka waa la sii dhammaystiray infrastructuradii aan samaynay haddaa xusataan dad hadda dowladda soomaaliya madax ka ah maalintii aan kaamirooyinka magaalada ku xiraynay warbaahinta qaar waxay soo qoraysay baalayaashii fahad yaasiin oo yaasiinka la saaray shabaab baana qarxiyey warbaahin aad taqaanaan oo soomaaliyeed baana soo qortay oo dhahaysa baalayaashii yaasiinka la saaray baalaha manaa iska leh waa kan hadda shaqaynaya aniga ma lahayn xoolo aan leeyahayna laguma bixinin axsaan aan leeyahayna laguma samaynin soomaalaa iska lahayd soomaalaa samaysatay marka falsafooyinka la rabo in la bedelo akhlaaqda siyaasiga oo la bedelay ka mid tahay waxa nationalka baalaha halkaas yaalla wuu harayaa kan jooguu ka dambaynayaa midka ku sii xigoo ka dambaynayaa carabta waxay tidhaahdaa low daamat lighayrika lamaa wasalat ilayka haddii kii kaa horreeyey iskaga joogi lahayd adimaba kuu timaadeenba marka laga yaabaa haddii raggaas waagay aad noogu qaylin jireen meesha inaysan imaanaynin bay aaminsanaayeen annagu laakiin aan ku noqonayna aaminsannahay marka si fiican baan u hadlaynaa waa mahadsantiin aqoonsiga israa'iil ee somalilan markuu soo baxay dad badan baa hadlay mawaaqiftoodii caddeeyey gudaha iyo dibaddaba dadka mawaaqiftoodii caddeeyey waxaa ka mid ahaa siyaasiyiinta somalilan ee halkan jooga maybe aniga af soomaaliga inuusan ku filnayn inaan fahmo mowqifkoodii rasmiga markaa waan fahmi waaye markaadna waxaan jeclaan lahaa inaad bal mowqifkoodii aad waxaad ka fahantay aad inoo sheegto sidoo kale saameyn intee la eg bay leeyihiin siyaasiyiintaasi markii ay timaado inay isku soo dhaweeyaan labada koonfurta iyo waqooyiga mahadsantay su-aasheedu waxay tahay arrintaanu markay soo baxday waxay soomaaliya heshay saaxiibo dalaladay aad sheegtay isbahaysay samaysmaayo mid ka mid ah oo dabcan danahooda ka arkay amnigooda qowmiga ah ka arkay inay soomaaliya garab istaagaan
adoo fiirinaysid soomaalida siyaasaddeeda habdhaqankeeda kala qaybsanaantayna gudaha saadaa ay sheegaysay madaxweyne goboleedyadii diidanaa iyo siyaasadayna gudaha ee ku dhisan iyo yeeli maayo iyo isdiidada dhexdayna haddii ay dhacdo inaan fursaddaas ka faa'iidayso weyno dalalkaasu hadda ay rabaan inay nagu garab istaagaan sanad 2 sano kadib ama 3 sano kadib ama sanado kadib ay gaaraan haddii ay naga niyad jabaan ma laga yaabaa inay fursad u noqoto maxaa la yidhahdaa somaliland naftirkooda ay dhahaan dee koonfurta waxba kama soo socdaan dowladnimo kama soo socoto hore uma socdaan danahaynii weli khatar ay ku jiraan maybe inaan dhinaca kale ka fikiraan may dhici kartaa maxaase nagu dhici kara haddii oo ay niyad jabkaas ugu yimaado siyaasiyiinta somaliland inta la yaqaano ee muuqata ee xisbiyada leh mid yiri kabahan ka soo cararay markaan maqlay waana la ictiraafaya kaas waa taqaanaa soo maa telefoonkii qaldanaayo shaydaan ku dhacay buu soo cararay iyo mid kaloo yiri nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam israa'iiliyiin buu heshiis la geli jiray nebi iyo israa'iilna xaggee isku arkeen waa jaahil taariikhda islaamka xataa aan aqoonin yahuud la deganayd bay say u wada noolaan lahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kala heshiiyey oo uu siiyey xuquuq la mid ah xuquuq muwaadinimo oo uu difaacayo sida uu difaacayo muslimiinta saa darteed qaanuunul madiina bay ku dhisnayd inay xuquuq wada helaan markaasuu inta meel soo istaagay wuxuu leeyahay nebigaa israa'iiliyiin la heshiiyey adiga haddaa iska qarimayso oo shaqooyin qabsanaysaa nebigaas oo dhex gelin waxaad qabsanayso qabso hal nin baa jira oo ilaa hadda aanan codkiisa maqal oo aamusay oo shib yiri oo mowqifkiisa ka warqabo magaciisa haddaan sheega waxaan ka baqaa intay hadda u daataan inay pressure saaraanoo wax kale ka hadal siiyaan marka isagana magaciisa ma sheegayo laakiin hal nin baa ka aamusay badankood waxay raaceen mowqifkaasay raaceen qaarkood raalli kama ahan kumana qanacsana laakiin waxay u maleeyeen buuqaan jira inay taageeradooda ku lumayso mararka qaar ninka siyaasiga ah hadduu u maleeyo shacabkaaga waxay ka xanaaqsan yihiin iska aad oo waxa daaya culimada aan ka sheekeynayna waxay ku dhaqmeen sheekh la yiraahdo sheekh ibn Uthaymeen baa waxa la weydiiyay antum culamaa sulta culimada dawladda tihiin baa leeyahay wuxuu yiri culamaa sulta hadii jireen culamaa shacabna waa jiraan wax allaale waxay shacabka rabaan waa xalaal u dhahaya marka qofka hogaamiyaha ama diin hogaamiyaha ku noqdo ama siyaasi ha noqdo ama wax kale ummadda ku hogaamiyo waxa la rabaa wax saxda inuu u sheego badankoodu mowqifkaas ay taageereen qaarkood ha ku qasbanaadaan qaarkoodna ha ka aamusaan waxaa soo hartay su-aashii kale oo haddii laga faa'iidaysan karo koonfur hadday ka faa'iidaysan weyso oo dowladda dhexe ay ka faa'iidaysan weyso khasaare intaan ka badanaa nugu dhacayaba midaas kaliya aad sheegaysa maba ahaba khasaarooyin waaweyn baa nugu dhacaya waana waxaan caawa o dhan lahay war fursaddan ha laga faa'iidaysto somaliland ma loo noqonaa inta israa'iil la joogto cid u noqonaysa ma leh waa isku dul qurmaynaa ma ahane cid u laabanaysa inta israa'iil la aaday ma jirto leanna meeshan khataraa ka soo socota khatar jiritaan baa ka soo socota dowladuhu waxaa la dhahaa marna calaaqaad baa ka dhexeeya marna waa dan wadaag marna waa isku masiir yacni dowlado fara badan baan maanta isku masiir noqonay waana fursadaha aan daaya ka sheekeynayay ee dahabiga ahaayee noo yimi marka mar loo noqonayo ma jirto haddii loo noqonayana israa'iilta weyn baa la aadaya oo lala soo heshiinaya ma ahane nin halkaan oo telefoon whatsapp haysta cid u imaanaysa oo la hadlaysa ma jirto waxaan qabaa madafaad waxaan ku weydiinaa mudaxilaadka dowladda oo aada u kooban iyo gaabka badan imaan karo oo soomaaliya doorashadeeda iyo tii baarlamaanka labada aqal tii madaxweynaha isjijiidka khilaafaadka soomaaliya dhexdeeda sida jubbaland puntland caqabadana hortaagan iyo culeyskana saaran oo tan hadda arrinta israa'iil wadamadii tusaale-ahaan waddanka inta ka saarnay saameyntiisa sidee gaabkan hadda dowladda kusoo socdo sidee lagu hortegi karaa culeysyadaas midda labaad siyaasaddeena oo caadifiga inta badan oo ku dhisan caadifadda aan ka hortag iyo istiraatiiji fog aan lahayn ka waran dowlado hadda aamusan sida kuwa deriska aamusan tan maraykanka waa nafteeda ayaama intuu taraam joogo isbedelayso ka waran haddii si fudud aan aqoonsi kale aan filayn sidii israa'iil camal oo imaado qaabkee lagu hortegi karaa ka siyaasiyiin ahaan waxaan kasoo jeedaa gobollada waqooyi dadka israa'iil loo dhiibay baan nahay
ilaahayna israa'iil waa naga qaban karaayo dad muslinaan nahay laakiin waxaan weydiinayaa khaliifka fahad madaxweyne ciro wuxuu u socdaa talaabiib maalmahan dowladda federaalka soomaaliyana ilaa hadda iyadoo og inuu talaabiib u socdo wax xala oo ay ka soo saartay ama ilaa hadda ay ku wajahday xaaladaas ma jirto sidii loo dhayalsaday iyadoo la ogaa in israa'iil aqoonsanayso somalilan oo laga warqabay haddana talaabiib buu u socdaa oo de israa'iil waa nimankaan xishoonayne muslimiin waxayba heleen dad muslina oo waxay idhaahdeen waxaan helnay dad muslin oo nagu faraxsan baan soo helnay waddan muslin oo nagu faraxsan waana runtooda de wixii waqooyi ka dhacayay dee farxad way dhaaftay annaga haddaan nahay gobollada waqooyi horta mana taageersanin taageerana uma nihin axmaarana shalay waa diidnay israa'iilna waa diidanahay laakiin dowladda federaalku siday u wajahaysaa haddana aqoonsigaa xigee whatsappka kabacdi ee haddana uu ciro ku tegay talaabiib ee weliba si official loogu casuumay midda madaxweynaadka la xiriiro khudbadeediina way ku jirtay marka taa dhowr jeer baan ka hadlay kuma noqonayno intii aan sheegay un waay madaxweynuhu inuu soo noqdo xalkii loo midoobo dadka Soomaaliyeed loo abaabulo intii hore aan u sheegay baa ku filaanaysa su-aasha labaad waxaa waaye haddii dowlad kale aqoonsato cagsi aan u dhigno marka hore waa nimanka caqligooda keeni waayey xataa israa'iil qolo iska soo hormariya qolo kale oo israa'iil ka soo horreysa bal horta haydi aan qoonsato markaas jamhuuriyadda federaalka soomaaliya rafaadsanaan lahayd see loola dhaqmaa see la yeelaa maxaa la sameeyaa ayaguna niman wax helay bay u ekaan lahaayeen hadda qof kasta oo aqoonsada maamulkan hadda meesha ka jira waa qof israa'iil ay ka soo shaqaysay khadka israa'iil unbuu ku jiraa un khaanad kale oo la gelinayo ma jirto haddii aad la socoteenna waan rajeynaya la socotaan markii warkan soo dhacay waxaa la dhahayay 4 dowladood oo kala la socota qaarkood magacyaal la sheegayay markii warkii israa'iil soo baxay oo jawaabtii dunida ka timid oo cid walba ka timid la arkay qof walba meeshiisu uu ku hakaday uu ku istaagay sidaa darteed ictiraaf sida lagu helo iyo siduu ku yimaado waa arrin sharaxaad dheer u baahan oo aniga war ka bilaabay waa arrin legal ah oo sharaxaad dheer u baahan laakiin Kosovo hadda dowlado badan baa aqoonsan golaha UN ta lagama aqoonsana waxna uma dhameystirmin sidaa darteed aqoonsi sidiisaba xamar uu ka yaalaa meel aan xamar ahayna waa un telefoon meel khaldan loo diray wax natiijo ah oo ka soo dhalanaysana ma jirto haddii xamar la yimaado la wada hadlo la heshiiyo waxay Soomaali ku heshiiso oo halkaan la ka imaado un bay ka bilaabataa kuna dhamaataa sidaa darteed wax macnaa ay soo kordhinayso ma jirto ciro talaabiib hadduu aado haddaan kuu sheegay ka war inuu hore u aaday oo qudus tegay oo talaabiib tegay oo la soo fariistay marka hadda midaan ognahay buu aadayaa bas oo public loo ogyahay laakiin hore u tegay wiilal yaryar oo madax xiran oo xafiiskiisa ka shaqeeyana waa ku noqnoqdeen meesha dhowr jeer ay tagtageen oo asaga iyagoo matalaya oo aan taariikh garanayn oo aan dhaqan garanayn oo aan wax dadku isku yihiin aan garanayn marka hadduu tago dee waa diyaarad unbuu raacay un wax kaloo soo kordhin kara ma jiro dowladda Soomaaliyeed maxay qaban kartaa ictiraafkii waa ka hortagi weysay ma diyaarad bay ka hortagi kartaa xama qaban karto laa xawla walaa quwa horta macnaheeda culimada xataa inay ku laabtaan waay laa xawla iyo walaa quwa waxaa la hormariyay laa xawla haddaadan xeelad la imaanin quwad ku imaan mayso marka xeeladii ictiraafka looga hortagi waayey dee meel unbuu tegi diyaarad buu raacay waxba lagama qaban karo laakiin ciro wixii uu khalday wuu khaldee meeluu ku istaagi karo hadda joogaa meeluu dadkiisa ku badbaadin karuu joogaa mana badbaadinayso inuu hadda talaabiib aado wax ay u tarayso lama arko deegaankiisa caafimaad uma keeni doonto waxbarasho uma keeni doonto maamulkiisa uma midayn doonto dadkiisa uma hagaajin doonto sida uusan ictiraafka qiimo u lahayn buu safarkiisaasna qiimo u lahaan lahayn qiimo u yeelan doonin waxaa ka dhow inuu wixii uu sameeyey ka laabto xalkana u soo laabto maslaxada dadka reer Soomaaliland maxaa ugu jira wada tashi inuu ka sameeyo ma la socotaan go'aankan hal qof oo kabinetkiisa xataa inuusan kala tashanin hal qof oo institutionada Soomaaliland lagalama tashanin asaga iyo dhowr wiil oo asaga ku xirxiran un baa waxaan sameeyay
xoogaa yaroo dalaalna qolo dhexa laga qaatay intaasaa masiirka ummadda oo dhan loogu cayaaraya waxaa sheegtay wixii aa sheegtay ka mid ahay fahdow in dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh in somalilan arrinteeda iyadoo hargeyso joogtaa hadda tel abiib iyo kaxagga ay tagtay marka inuu khaladkiisa qirto mar aan sii fogeyn oo ka hora markii arrintan soo baxday ka hor waxaan sheekaysanaynay wasiir ka tirsan wasiiradiisa oo weliba kuwa ugu dhow ah arrimaha dibaddana ka shaqeeya wuxuu noo sheegay markaan arrimahan imaaraadka iyo wax ka weydiina arrintan waxay keenta macnaha in imaaraadkii dartiisa xataa heshiiskii lagala laabto inkastoon toos loo wada burin maraan wax ka weydiinayna marka wuxuu noo sheegay horta arrinta ogaashada isbuuc ka hor inay ogaadeen oo weliba dowlad dirisoo loo soo sheegay ay u sheegto noo sheegay markaan dhahnay dowladda imaaraadka oo soomaaliyana wax badan lagu xagliyay inay dhibaato ka wado maxaa wax uga qaban la-dihiin waxyaaluhu noo sheega waxaa ka mid ahay marka xiriirka loo jaro iyo marka xiriirka lahaayaba labadaba inay dhib nagu hayso waa ognahay laakiin marka loo jaray sii daranta uu yidhi waxyaaluhu noo sheega waxaa ka mid ahay aqoonsigan naftirkiisa xiriirka ay dowladda anaka naga horreyso oo agaasimo fahad dabcan oo ka mid ahay xiriirka ay u jartaa ka mid ahuu yidhi macnaha in aqoonsiganka yimaado laga shaqeeyaba waxa ka shaqeeyey ayadaa ugu badan uu yidhi xiriirkii loo jaraana ka mida marka ma dhici kartaa in hadda xiriirka in loo jaray ay u dhowdahay macnaha heshiiskaa lagala laabta laakiin hadda iyaga say u dhaqmaya xiriirka waa loo jaray idinka xilligiina xiriirkaa u jarteen adigana waxaa ka mid tahay dadka aad ugu adeeya ama waxaa ka mid tahay dadka inay imaaraadku soomaaliya lagu badan ku dhib badan ku haayaan marka hadda maadaama xiriirkii loo jaray ay ku dhowdahay macnaha in loo jaro ayaguba ay sidii loo jaro u baxooyaan adiga waxaa taagan tahay haddii lasoo raaca hatee waxba sooma kordhinaysa laakiin imaaraadku inay sida ay hadda dowladdu aaminsaneedba inay marka hore xiriirka ka timidba arrintan ama maamul goboleed culeyskiisa ha noqoto ama aqoonsiga ha noqoto inay ayaga kusoo shaqeeyeen xiriirka idinka u jarteenna uu ka yimiday in haddana maadaama ay sii baxoos yaman ku soo jabtay suudaan inay ku jabta laga yaabo inay markaan isqarxiso ayadana ay israa'iil daba raacdo toos ugu dhawaaqda inay aqoonsato somalilan wixii hore loogu qaba ka badanna inay yimaadiin ma laga yaabaa maadaama sirdoonna aa soo martay xogo badan aa hayso wax badan aa ogtahay waa mahadsanta laba arrin aan rabay inaan ku weydiiya ani waxaan ka soo shaqeeyey waqti waxyar ka soo wareegatay arrimahan oo maritimeka portfolio maritimeka waxaan ka ahay deputy marka waxaan dhan waxay ku gadaamayeen dadka soomaalida naceeb gaar oo afrikaanka kale iyo wadamada muslimiinta looga qabo cunsur ahaan dadka soomaalida ma jirto waa wax geopolitical iyo ujeedooyin kale iyo dano kaloo la leeyahay ayaan kusoo aadnay waxaa jira wadamo badan oo annaga nala mid oo afrikaana oo ku yaalo central africa ama afrikada kaleed ku yaalo wax dhibaato haysta ma laha wax tension oo haysta ma laha macnaa xuduudahooda tensionka ma jiro macnaha anaga marka mar walbaba ilaa markii aan samaysanay dowladnimadeenna intay samaysmaysay mar walbaba waxyaalaha exposedka naga dhigayo mowqica ilaahay oo na makaniyey meesha aan joogno waay taas waay marka waxa oo isha dhan ay noo hayso dadkana haystane dana kala duwanay leeyihin waa dadkaas aa aragtay oo aadka u dhibka badan oo inta la sheegay yacni dhibaatadooda ummad muslimiinaan nahay kitaabka iyo sunnada iyo turaaska wuxuu sheegayaa dadka nahaaya hadda oo midnimadeena dhaawacaya dad khatar inay yihiin macnaha adduunkana macno kala haya wanaag iyo samaan iyo xumaanba xumaantana ay badan tahay kuwa hadda jooga marka intaa joogtay dowladdii hore marna waxaa joogtay xafiiska waddanka ugu sarreeya oo waxaa ka ahayd agaasime marna waxaa joogtay state haddii la haynayo dhuuxa oo stateka ku taagan yahay waxaa waaye hay-adaha oo maaragtay nabad sugidda iyo intelka waaye marka dareenna waa jiray oo xafiis gaaraba loo sameeyeyba arrimaha waxaa dhan waxay kusoo laabanayaan red sea and golf of aden regional platformska aan ka tirsannahay igad waxay leedahay red sea and golf of aden
wadamada African Unionka waa leeyahay focusaa lagu hayo way soo socotay kuwa carabta aan ka tirsannahay golf waxaa jiro majlis dhanaa jiro Red Sea and Gulf of Aden oo Sacuudiyaanka ay aad u ilaashadaan marka dareenaa jira ergeyaa la sameeyey xafiisaa la sameeyey xafiiska markii arrin la sameynayo xafiiska sare markii la geeyo waxaa loo geeyaa for political commitment macnaha arrintan inay muhiim tahay ee national security-ga muhiim u tahay wax oo shaqo ka qabta arrintan ma jirta miya dareenkan ma jiray waxaan wax walbo bilowda waqti soo qaataan yani markay diyaar garoogi waxaas ka soo baxaan in la excuse gareeyo xataa waxay imaanaysaa xilli oo bibin bam meel laga qaban karo 9 8 7 meel laga qaban karo marka mar walbaba nawdale inaan ka war helno itaal daradeena way keenaysaa horta oo waxaan nahay wadan oo jaban laakiin intaa joogtay macnaha ma jiri sensigaas arrimahan oo la dhahayo Abraham Accord-ne waa ku dhex jiraan waxaan waa ku dhex jiraan unfortunately wadamadii saxiixay ma caawinin weliba dadka afka carrada u gelinaya wadamadaas waxaa laga yaabaa in lagu imtixaanayo waa kula qabaa arrinta ah Soomaaliya inay faa'iido ugu jirtaa laga yaabaa wacasa an takrahu shay huwa khayrun lakum gaar ahaan ummadaha sideenoo kaleente aadka farajaalka ah u burburay u jaban waxaa la dhahaa itaalkooda iyo tabartooda markay tare dareemaan oo soo baxa istaransigooda dadka Soomaalida markay abaar dareemaan markay colaad dareemaan hogaamiyaala ka soo baxo tabaray yeeshtaan marka waxaa laga yaabaa inay wax kala tagtagi lahaay inay khayr noo tahay laga yaabaa MOU-gi waa ogeyd yani marka waxaan rabay markii inaa xoogaa meeshaas bidhaamiso waxaan wax over the night lagu soo booday ma ahan mowqican ilaahay nagu makaniyey focuskaas saarnaay arrimahan waa soo jireen waa lays haystay adduunyadana super powerka ayaa isbedel ku socdaa oo wareegaya powerka ilaahay burji oo bixiyo waaye 1924 Ottoman Empire khilaafada islaamka meesha ku soo baaba'day ahayd 100 sano ka soo wareegay 2024 marka calaamadaha hadda dadka wax qor waxay sheegayaan in shifting of power oo dhacaya laakiin maalmo may qaadanay bilo may qaadanay sanadyo may qaadanay waa la wareeraa waa la isxoogaa wall oo dharka dhumaayo waxaad 2-4 days ago waxa la dhahayay Mareykanka wuxuu duqeynaya Iran waxay dhahaysaa soo gabagabeynaa raali ah xiris Iran waxay dhahaysaa haddii aniga wax yar leeyahay taabto bidixii midiga u ridaya marka wadamo badan halaabi doono we have nothing to lose laakiin in dalkana laga qaato oo nala xoogo oo meeshan dad kale imaadaan un baa noo daran wax badan oo aan haysano malaha taasaa dareen nagu haysa marka agaasima haddaa meeshaas ifin karto waa kaaga mahad celinaya runtii nuxurka adaa sheegayba yani Soomaalidu kawaadirna way leedahay garashana way leedahay hadayna waa aniga ka hadlayay kawaadirteena iyo garashadeena iyo aqligeena iyo cilmigeena waxaa hortaagnaa sheekadeena loo kala ahayd aniga 20 sano ka badan wariyaan ahaa waxaan ka sheekeyn jiray oo dhibaato Soomaaliya ka dhacday waxaas dhacay qofka ajnabiga ah ma khusayso Allah ina caawiyo buu ku dhigay bas iyo maxaa idin la qabtaa wax khuseeya ma aha علاقاتك دولية waxay ku dhisan tahay qofka wuxuu ku fahmaa wax asaga khusaya marka uu sheegto marka hadalkayga un baan ku celinayaa oo ah annaga hadda waxaan Soomaaliya waxay haysataa fursad ay ku sharaxdo cidii dhibaateynaysa iyo dhibaatadii nagu dhaceysay narrative international aan u yeelaynaa luqad caalamiyan ku sheegi karnaa hadda war dhibkaas aan haystay wax nala qaban kara si wax nala sameyn kara waa number 1 number 2 na waxa waaye dawladda laftigeedu systemkeeda waa inuu u dhisan yahay institution haddii institutionadii aysan ayagu xor ahayn shaqadoodii qabsan karin shaqadoodii laga qaatay xafiiskii lagala wareegay awoodahoodii lagala wareegay wixii la qabanaya inaa idiin soo sheegayo la dhaho haddii ma fakari karaan nin walba feelkiisa unbuu subaxii u shaqo tagaya mushaarkiisa unbuuna iska qaadanaya waan rajaynayaa rajada aa qabto inay noo hagaagto ah inaan baraarugno caqligeenni ku baraarugno maskaxdeenni ku baraarugno waxaana aan u bedelno sidii aan ku midoobi lahayn waan isugu iman lahayn cid walba oo soo bahaysatay annagana cid diyaar u abaa jirta in nala bahowdo oo wax nala qabato inaan ka faa'iideysano un baa muhiim ah maasanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo loo su'aalood oo isa saaran madaxweynaha
markii arrintan ay dhacday ictiraafka la sheegay ama WhatsApp call ka saa ku sheegtay markii ay dhacday madaxweynuhu waraysiga u horeysay uu bixiyay kanaal carabi oo siiyay haddii aan khaldanay Al Jazeera una haba u maleynaya waraysiga horeeyay uu bixiyay wuxuu dhahay hadda Israa'iil lama lihin anagu xiriir haddaan dowlad federaal ahaan nahay laakiin laga yaabo bari inaan la yeelano marka su-aasha halka iga dhalatay waxay tahay Israa'iil hadda Somaliland in ictiraaf siisay waxaan uga soo horjeednaa macnaha mowqif guud oo Israa'iil aan ka leenahay dowladeenu ay meel ay ka taagan tahay miyaa jira mise inay Somaliland siisay hadda tiri ictiraaf aan siinay darteed ba horta hadda uga soo horjeednaa number 2 mowqifkeena muxuu yahay inaga ta kale madaxweynuhu marar badan wuxuu jeediyaa khudbad u jeediyaa laba khudbadood hadda isku xigay oo midna asbuuc hore masaajidka uu ka jeediyay bakaaraha ku yaala midna shalay lascaanood ka jeediyay tii hore wuxuu ku dhahay Soomaalida wax ka dhaxaysa diinta uma ka dhaxaysa shalay wuxuu ku soo daray adigu maxaa dhaqanka iyo inay naga dhaxayaan marka ilaa hadda mas'uuliin kale iyagoon hadlay oo badan oo dawladda ka tirsan fariimaha ay dirayaan waxay u muuqdaan fariimo habqan ah shacabka way wararsan yihiin anigu shacabkan ka mid ahay ilaa hadda ma garanayo fariinta ay dawladdu ii dirayso oo ku aadan mowqifka dawladdu ay taagan tahay ama waxa meesha halka ka taagan tahay arrinta hadda dhacday fariimahaasu Soomaha ama lama dhihi karo waa kuwa dadka si kala fogeynaya ama Somaliland oo shacabka Somaliland hadda adigu aad tiri shaydaan baa koolka idinka qabtay shaydaanka iska naara wax si fogeynaya Soomaha maxaa la yiraahdaa fariimaha dawladdu ay dirayso iyo hadalladan dawladda ka soo yeedhaya iyo sidoo kale shacabka kale oo gobolada kale oo dalka jooga xitaa Muqdisho shacabka jooga yani meel ay ku hagaagaan oo mowqifka dawladdu ay taagan tahay ilaa hadda ta kale waxa maalmahan soo baxaysa iyaduna in la leeyahay dawladdu maxaa la yiraahdaa awdal state-yadana in laga dhawaajinayo ba maalmahan aad soo noqonaysay oo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan xitaa shalay markii ay tagaan lascaanood ay dalbanayaan dhahayaan awdal state in lagu dhawaaqo hadiiba ay dhacdo dawladda horta xilligan adiga xogta aad haysid iyo maxaa la yiraahdaa khibradda aad u leedahay ma kula tahay inay dhici karto in hadda dawladdu ay ku dhawaaqdo in awdal state ay u aqoonsato sidoo kale hadiiba ay dhacdo maxay ka bedelaysaa arrinta hadda taagan ee Somaliland iyo go'aansatkeeda iyo jidka ay hayso aad baa mahadsantahay ani waxaan rabaa inaan jawaabta si kale u dhigo dawladda Soomaaliyeed sideedaba waxaan ka rabnaa waa fududiin shaqo badan lagama rabo saddex shaqo bis aan madaxweyne xasan shaqo ka rabnaa dastuurkii 2012 inuu ku soo laabto doorasho heshiis lagu yahay lagu soo laabto labadaas waxay furo u yihiin inta hadda isla joogto in la isla haayo horta saddexna waxaa laga rabaa adduunkan noo soo jeestay sidii looga faa'iideysan lahaa qorshe qaran in loo bedelo baahi qaran in loo bedelo dan qaran in loo bedelo haddii dan siyaasadeed loo bedelo ama dan kooxeed loo bedelo ama dan qofeed loo bedelo ama dan doorasho loo bedelo waa dhumaynaa annagana waa la dhumaynaa waan isku tulfaadaynaa marka xigmad badan uma baahnin caqli badan uma baahnin madaxweynaha waxaan ka rabnaa dowladaha Sacuudi Turki Pakistan Qatar noo soo jeestay ee rabaa inay Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyaan ee qaarkood laascaanood tagay aniga shakhsiyan aad ay soo jeedatay dowladaha laascaanood tagay dowladahaas garaad wadareed oo aan wada leenahay kaga hortag una geyso laakiin hadda election ka fiiriso ama dan degdeg ka fiiriso kaama caqli yara way ku fahmayaan waana ka aamusayaan markay ka aamusaana meel kale u leexanayaan labo wixii intii hadda joogtay maanta madaxweyne Siciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe haddii xasan sheekh labadaas aan sheegay uu sameeyo wuu ka garjoogaa isaga ka garjooga doorashadana kaale imaada igala heshiiya dastuurkii 2012 waa ku soo laabtay ayaga ka gardaraanaya af ay furaana ma hayaan haddii laakiin la sameyn waayo waxa laga yaabaa meel ay hadda u soconin inay sii aadaan meel ay hadda u soconin inay sii aadaan marka maskax badan iyo military fara badan iyo caqli fara badan iyo ilaa boorama maxaa laga sameyn karaa iyo dekadaha maxaa laga sameyn karaa iyo marka dambe waxa laga yaabaa inay dhahdaan madaxweyne xasan sheekh satellite ma diri karaa iyo waxaas oo dhan ma rabnaba laba shay oo fudud bas aan ka rabnaa oo heshiisa iyo midaana caqli qaran iyo maskax qaran in la keeno dowladahaasna waxa la weydiisanaya ay noqdaan dan qaran ciidan bad noo dhisa ciidan cirka noo dhisa
infrastructure waxaas nagala qabta diblomaasiga waxaa nagala qabta laakiin aniga waxaas isii haddaa hadasho iyo aniga waxaas aan u baahanahay iyo culeyskaas ay haystaa waa un lagu fiirinaa waxaa lagu dhahaa waayahay hadhow waxaa sugi doontaa qolo kale whatsapp call kuu soo dirta adna shaydaan kalaa kaa qaban doona waa mahadsanta sidaa la socno badan waxay ku mashquulsanahay aqoonsiga somaliland waa iska caddahay israa'iil waxay ka qabanayso goobaha iyadoo arkaysa dowladda la tacaamuli karto inay soo maalgelinayso maleeshiyaad iyo qolo oo dowlad isku sheeg ah muhiimadda horta waxay tahay juqraafi ahaan say noqon doontaa xaaladda israa'iil waa ognahay meelo badan ee hadda ku mashquulsan tahay ka mid tahay xalab iyo dhulkaas hadda wax ka socdo waa loo imaan doonaa somaliland waana iska caddahay in waqtigaa ahayn loo imaanayo oo howl laga fulinayo su-aasheeda ugu weyn maxarta israa'iil goormay bilaabaysaa macnaha howlgalkeeda oo somaliland su-aasha kalena waxay tahay puntland waxaa arkaysay oo iyadoo midnimo iyo wax laga hadlayo oo dhehayso u dhadhaaranayso sool maxaa ku kalifaya iyadoo arkayso macnaha midnimada dhacda iyo wax walba oo xaaladaas yaa soo riixaya puntland yaa shaydaankii maa ka dul hadlaya mise puntland waa nadiif israa'iil goormay bilaabaysaa 1978 bay bilowday soomaaliya inay soo gasho horta ay ka shaqayso dowladda siyaabara ayadaa wax ka dumisay snm ayadaa tababarta tas ma ogtiin jabhadda snm dadkii tababaray waxaa ka mid ahaa israa'iil SDF bay tababartay oo talaabiib la geeyey oo lasoo tababaray waa aniga daaya idin lahaa waan u malaynayaa waa la sheegay hadda waa la qiray banaankaa lasoo dhigay adduunyadana la fahamsiiyey adduunyadaa loo sheegay dhibkiina lagu hayay ma ahana waxaan horey u socdeen jabhadihii magaalada muqdisho burburinaya ma waxaa u malaysaa inay meel dhow shaqadooda ka socotay meel shishay shaqadooda ka socotay marka hadda waa mahadsantihiinna ma dhihi karo maxamed xaaji ibraahim cigaal baa hadda ka hor madaxweyne maraykan inuu clinton ahaa baan u malaynayaaba intuu hadal yiri hadalkiisa aada uga helay waa gaal oo jazaaka allah khayr ma dhihi kare laakiin wax fiican buu yiri hadda nimankan waa mahadsan yihiin mahadsantihiin ma dhihi karne laakiin hadalkiina waa noo toosiyeen doodiina waa noo toosiyeen waxoodina bannaankay keeneen shaqadu laakiin waa socotay jabhadihii etoobiya lagu tababarayay ilaa talaabiib baa la geeyey oo lagu soo tababaray dadkii lagu soo tababaray waa nool yihiin ya hee ma toosiyeen muxuu ka wadaa si usoo tababareen israa'iil ma qur-aankay taqaanaa qoladan qur-aan ay akhriyaane marka arrinta marka meesha taal horta waxaa waaye jawaabtaas midaan kale 85 way yar tahay 95 shacabka somaliland ku nool kulligood raallika ma aha waxa mudaaharaadayana wax yar oo soo kacay waana sii wadi waayeen ogow wax yar inta soo baxeen oo meelaha istaageen bay haddana bay laabteen marka shacabku waxaan raallika ma aha institutionaduna raallika ma aha in yaroo telefoonkii la qabtay lagu wareersan yahay oo weli maskaxdu qasan tahay lagu jiraa markii lasoo baraarugana oo miyirku soo laabtana waa la ogaan doonaa marka yaanan loo qaadanin waxa kanu horey u jireen cidina ma samaynin muuse biixina ma samaynin madaxdii ka horeysana ma samaynin ninkan unbaa maskaxdiisu intaa noqotay isaga unbaana sameeyey cid kaloo mas-uulka ahoo loo qabsan karana ma jirto sidaa darteed yaanan loo akhrinin wax somaliland la dhahaabaa israa'iil ku xeratay ma jiraan wayna dhammaan doontaa asagaa ka tegi doona xukun ka tegi doona dadkaanaa hari doona taariikhda xun asagaa doortay isaga laftigiisana waxaan rajaynaynaa inuu soo laabto marka mowqif reer somaliland intay fariisteen tashadeen ma jiro netanyahu laftigiisa cid ula tashaday ma jiro telefoon unbuu kala hadlay marka waxoo dhan ba laba nin oo quusatay unbaa telefoon isku dirtay maasanta su-aasha uu wiilkaasi ku weydiiyay iyaduna waxay dhignayd jaanisyo inay jiraan baad ka dhawaajisay nin mucaarada oo xilka u socdana xisbi u socdana waa tihiin jaanisiyadaasi ma markaad kursiga tagtaan baad hirgelin doontaan mise hadda xukuumadda wax waad la wadaagteen maya xukuumadda si gaarana waa talooyin waa ugu gudbinaa haddana waa annaga u gudbinaynaa waa laga yaabaa inay canaan u arkaan laakiin waa talo si gaarana waa ugu gudbinaa anugu si gaaraan ula xiriiraa madaxda fariimaan u diraa fariimo dadban baan u diraa
wax gaara waa u sheegaa intaan ka gaari karo waa u sheegaa sidaanna wax waa ugu sheegaynaa labo adiga marka aad bannaanka joogto ee mucaarad aad tahay xaqba uma lehid inaad dowlad shisheeye la hadasho sharciguna kuma ogola qaanuunkuna kuma ogola anshaxna maba ahaba dowladda soomaaliyeed xaq u leh ayadaa la rabaa inaad wixii fariinam u dhiibto ayadaa la rabaa inay adduunyada la macaamisho oo ay la hadasho marka annagu hab aan dowladda intaan ugu tagno aan fariin ugu sheegi karno haddii inay jirtana ma ahan haddii jirtana waaba khalado waa sharci darro cid kastoo samaysana waa sharci darro laakiin haddii xukunka aan nimaano dee wixii caqli intii isu tagtay oo caqli wadareedkooda uu u sheegayo inay samaysaa waajib ka saaran yahay dowladdan inaan tala siino ra'yi siino maskax siino waa waajib nagu aho intaanaan samaynayno iyo intaan gaar u samaynayno kulligiina intaasaa waajib nagu wada ah aniga keliya maaha qof kastay waajib ku tahay waa mahadsantahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida aad waktigiina noogu soo hurteen eed noogala soo qayb gasheen doodan xiisaha le caawa inta aynaan soo gabagabaynin waxaan fahad weydiin lahaa taladiisa ku aadan shacabka soomaaliyeed taladiisa ku aadan dowladda soomaaliyeed iyo guud ahaan fariin uu dirayo haddii ay jirto in uu inala wadaago ani shacabka soomaalida guud ahaan intaan ka aqaano qadiyadda falastiin may fahamsanaa jiilka af carabiga ku hadli jiray baa fahamsanaan jiray jiilka af carabiga hadda wuu sii yaraanayaa marka luqaddaa rabtid aqoo horta taariikhda bariga dhexe barta dhallinyarada soomaaliyeed weliba ha bartaan loolankan meesha kasoo bilowday ha bartaan israa'iil waxay ku dhisan tahay ha bartaan taariikhdana ha bartaan midda koowaad midda labaadna waxaa waaye yaanan lagu niyad jabin waxa dhacay waa marxaladii u dambeysay waxyaabihii aan soo marnay sheeko kaloo dheer waaye soomaaliya 30 iyo xoogaagii sano daraaso dhammaystiran baa in laga sheego mar laga sheekeeyo u baahan tahay laakiin meeshaan soo marayna waxaa waaye hadda meeshii u dambeysaan maraynaa tan haddaan ka badbaadno waxaan u gudbaynaa marxalad la dhaho caafimaad oo qaran ahaan aan u caafimaadayno dad ahaan aan u caafimaadayno jiritaan ahaanna aan u caafimaadayno caqabaddan waa midii ugu dambeysay oo sidii loo maamulo u baahan waana meesha aan fariinta saddexaad ka dhigayo madaxweyne xasan sheekh aan ku oranayo madaxweynow walaalow meeshaan hadda ay marayso gacantaaday ku jirtaa laba jid mid baana u furan inuu noqdo madaxweyne waddankii isku haya haddii ilaahay u qorana soo laabto hadduu ilaahay u qori waayana isagoo sharaf leh uu noolaado midda kalena waa ka xumahay saan u dhahayo madaxweynihii labaad oo waddanka gacantiisa ku kala tegay inuu noqdo taariikhdiisa hadda waxaa u qoran madaxweyne mar labaad la doortay inuu yahay markii labaadna israa'iil ay somalilan aqoonsatay soo taariikh kaloo madow maaha in dalka gacantaada ku kala tago walaalow min fadlaka wa ixsaanaka ha noogu darin adigana kuuma roona annagana nooma roona kuwa aan ognahay inay kaa gardaran yihiin qarankana ka gardaran yihiin adiga garasho xumo intaa u samayso garta ha u wareejinin meeshay maanta maraysana in yar oo sahlan oo madaxweyne xasan sheekh noo sameeyaa ku filan laakiin asaga waan ogahay aniga nal baa u shidan mar saddexaad baa soo noqon doontaa baa u shidan waxaa u shidan shajarat alkhuldi wa mulki laa yablaa baa u shidan inuu soo noqday wuxuu ka sii qaaday inay wax walba sahlan yihiin wuu ka sii qaaday intaan kugu filan haddaa soo noqoto sharciga allah kuu barakeeyo hal axsaan noo sameeya madaxweynihii kale oo dalka gacantiisa ku kala tegay taariikhdaada ha ku qorin waxaa taariikhdaada ku qortaa inaad doorasho dadka u diyaariso muddadan kuu hartayna dadkii oo midaysan aad teendhadii isugu geyso kaftan yar aan ku daray daay ninkaa wuxuu yidhi badbaado qaran ereyga badbaado qaran dowladdii hore haddaan nahay ma jeclin marka ereygaas aadna la maqashiin wasalaamu calaykum waraxmatullah mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida aad waktigiina noogu hurteen waxaan u mahad celinaynaa maan iyo bahda RTN iyo Somali Stream waad ku mahadsan tihiin sida aad noogala soo qayb gasheen waxaa kaloo mahad celinaynaa Fahad Yaasiin oo doodan xiisaha la caawa isagu ahaa ninkay noogu iftiiminaya aragtidiisa ku aadan Fahad aad iyo aad baad u mahadsan tahay